eedeysane Mugande ayaa ka horqirtay booliska wadankan Kenya inuu lacag gaaraysa 20 milyan oo shilinka Kenyan ah oo una dhigata 180,000 oo doolarka Mareykanka xilli uu ku sinaa wadanka Soomaaliya oo Alshabab ka soo dhacay. Mugande ayaa madax ka ahaa shirkadda samaysa lacagaha been abuurka ee dalka Kenya sida ay warbaahinta Kenya sheegtay. Mugande ayaa waxay booliska ka soo qabteen 12 Janaayo oo lagu soo eedeeyay inuu maamulo shirkadda. taliyaha booliska gobolka Meru ee koonfurta dhacda ee dalka Kenya Defender Nugunde ayaa sheegay inuu Mugande oo malaayiin lacageed ka soo dhacay kooxda Alshabab. ninkan ayaa sheegay inuu tan iyo 2018 u joogay Soomaaliya lacagahaasi ay xaqiisa ay soo mari jireen mid si madax furasho ahaana loogu soo dhiibay inuu kala gabiyo isla markaana uu ka dhaco kooxda Alshabab. Alshabab ayaa dhowr jeer dadka ka soo qafaasha Kenya ku qaata lacag madax furasho ah oo ay sheegeen in rag Kenyan ah oo ka ganacsada kala lacagaha iyo sidoo kale haystayaasha. Xuseen Xasan Cadde, Kalson TV, magaalada Muqdisho.